midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan oo maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta sare ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya sida madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Farmaajo ayaa ka warbixiyay kulankaasi iyo waliba waxyaabaha la isugu soo qaaday. Master Mahiga ayaa sheegay in dawladda ku meel gaarka oo muddooyinkan ay hareeyeen buuq ku aadan xilliga la qaban doono doorashada ayaa sheegay in dib loo dhigay isla markaana oo kala hadlay hoggaanka dawladda arintaasi iyo waliba in waqti looga daro dawladda ku meel gaarka Soomaaliya kaayo ku siman muddo hal sano. The agenda to the President, the Prime Minister and the Speaker to the forthcoming consultative meeting which will be held later this month in Nairobi. The purpose of this meeting is purely consultative. It is not a Djibouti 2, it is not a Mbagati 2, it is not a decision-making conference, but it's mainly just consultative without any decision-making. It is also going to be an exchange of information on how the TFIs are gearing up and planning to end the transition, and how the international community can also help the TFIs. That is the TFD, the government and parliament. waxaan kulamo la qaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya aan kala hadlay in muddo hal sano ah lagu kordhiyo jiritaanka dawladda Soomaaliya anigoo wada dhambaal ka yimid qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya maadaama uu xilligan dalka ku jiro marxalad aad xasaasi u ah. And now this invitation is under consideration by way of internal consultations on the modality, on the delegations, and on the date for this meeting. Ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhinaciisa ka hadlay aragtida arintaas ku aadan. oo aan loo baahnayn xilliga gudka baakiyo ummadda Soomaaliyeed waxay ku jireen in ku meel gaar ah 7 sano 7 sano wax badan baa ka dhumay waxa la yiri transitional task la qabto inna ma hayraat wax laga qabtay muddo 7 sano ugu dambeysay waqti yar ka haysan inta qaban karno waa qabanay laakiin waxa loo baahan yahay in laga baxo xilliga ku meel gaarka ah waxay ummadda Soomaaliyeed dan ma aha waxa lagu macnayn karaa kulli dakhli حيل العالم كعيد في كل جالك كل جالك في مرها مركا وحلو بهاي سيد ودقسيها لوجا بحر يضو أي صندوقين وحليها تكباكي هاوش أو وضع أي صعوبة أو مجالات البلاد السعودية أو بلاد الشباب خوارج تا لقى صار مجالات ملكس تا أو يجوعان لقى صاروا دول مناجل السعودية دبلوماسية كلا كانوا intaas oo dhan shahradii la baxsho magaalada loo dhiso lama yaqaano afkaarta uu qaadan doono baarlamaanka Soomaaliya oo